markaas waxay inta way maadana dhageyso ninkii waa soo duugnay صح wali markale inta soo laabtay soo nool ta qaban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سود وهذا واحد نقل السعتانة وان عماري channel وبرنامج حكمة وحمرتنا هو هلا برو مسعود iyo awaan sharaaw maanta sheekooyin aad u xiiso badan baa idin haynaa yaan ku hormarnaaniyo labadiina sharaaw adaa wax sheeg jiray nooga hormar sheekadii koowaad maxay ahayd horta waan dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale salaanta mar hore qaadin aad salaanta anu salaama dadka aad salaami aad iyo aad okay horta maanta waa la soo qabtay waxa la keenay barnaamijkii xigmada la keenay inkastoo nin xigmad badan ahayn haddana waxaan nin kaftan badan marka sheekada aan wada waxay noqonaysaa sheeko kaftan xigmadeedana wada iska kaftan aad iyo ha soo daa sheekadu waxa weeye waa nin inaag is qaba ay reer wada degan waaye marka reer la wada degan yahay qof waxa jira xirfad lagu wada shaqaysto oo ninka iyo naagtu isku fahansan yihiin iyo wax ay yaani reerkooda noloshooda ku wataan sax waa garan ninkan iyo naagtan is qaba marka waxay ku heshiis ku yihiin inay dadka xoolahooda la cunaan tuugamiya يعني قابتوغو tuug wax soo xadan ma waa xarfaan ay waa xarfaan waa xarfaan marka waxa dhacday maalin waxay arkeen cid diriskeeda oo hilib iyo wax loo keenay macnaa oodka ay jeeg dhan oo guriga si galay arkeen waa gart qoraal iska tusay waxa la yiraahday guri baalkaas halkaan jeegaas guriga ma masakeeyo waa gart waxa dhacday marka waxa la qorshe say ku galnaa ilaa cid inta tagna ma tuugsayna ma dhahayna waxaan hana la siiyay say ku galnaa cid islaamina inta u dhacna ma xadi karnaa waa gart wuxuu yiri odaygii marka wuxuu yiri waxaad sameynaysaa yiri aniga waa dagaalaynaa ay markaan dagaalno waa ku dila ana qol kugu ciirsaayo guriga ku ilni guriga isla galayna islaantii wala dilay dad odaga guriga jooga anigu wuu cila oo iga ka reeba Soomaa aduna aqalka gal صح kadibna jaaga wax ku jira noo soo gadi inta asaga lagu mashquulsan yahay inta la cilaayo ay waxa dhacday marka sidii uu sameeyay ushiyo iska la dabadaay ayadoo qeeliyo iga reeba tolma jiramiya dhaysay dalqtir gurigiina waa gart asna sidii caadada iyo dhaqanka Soomaalida ahaa nin naag ciirsaa waa laga reebi jiray ay cidii dhana huk soo tiriyo ka reebta meesha la cilaa gowriga iga cilnay uu leeyahay gudiga gasho marka jaagii soo qabatay jaago suuqa ku jiray wuu adkaad xogaa wuu qabo moogta waa gidi maagto waa gidismintiida waa taga madaxa inta aqal ka soo baxday wuxuu tiri xarkagtaa isku ka xarkiisay tiri moogta yaani ma ka wada aqbalka jaagi waa shumidiidani waa dhagan yahay maxaa sameeyaa markaas wuxuu lushaa waligeed lushaa sida calol baalka iga lul amal wax jira matiida yaa isku soo diri jira bas gudaha wallahi tabaarki jag siiday waa gididaniya fa wixii ku jira dhan banaan waa kaligeed ku soo qaatay madaxa inta la soo baxday wuxuu tiri noqoshaa waligeed u noqeen dambiga aa galay dambe u laabmay tiri moogta صح markaas uu cafiya waligeed ku cafshaay soo bax asraare ay waligeed ku adii wata ay baxay marka muhiimadda sheekada waxay tahay ama qeyr ku heshii ama shar ku heshii يعني labada qof waxa ay ku heshiyaan iyo ku wada noolaa karaan aad iyo aad ma santii هذه waa sheeko cajiiba wallahi هذه وصحي مسعود هذه دلودينبا داوداش واد سلامتين انا maxay diiday salaan hadu caadi waa salaamantiin salaamteen waa isku meeshii qaar askara baa ku jira qaar fiican oo kala cabitaan la yaalo oo shacabka salaamida bas horta nin xigmad badan maahi sheekooyinka inta badan waa ka yara dhacsanahay hal sheeko ayaa rabaa inaan ku tuuro oo la yiraahdo Salawiin sheekadu waa sheeko baaniso sheekadu wax kala maan bariga waxa dhacday sagaaro leh boqorkooda wadata baa ceel u soo aroortay sax ceelkii markay u soo aroortageen oo ceelkay imaadeen way badan yihiin aad bay u tira badnaayeen marka boqorkooda horjoogo ahaayo boqorkii wuxuu yiraahdaan ceelka noo soo fiiri meel agtiisa ay dhoobteen sax markii ceelku uu soo fiirshay wuxuu arkay ceelkii duugan markuu soo yara laaba rabo oo iyaga intuu imaado indhaa tala ka qaadi rabo baa maroodi yimaada ceelkii maroodigi markuu yimaaday wuxuu ku yiri maroodi ceelkan taabamaysidu yiri biyaha ku jira iyo waxa meesha yaalo oo dhanba farma saari kartid sagaarka dhaay de hadda waxa loo dhaaranayaa waa maroodi waa taa ugu hayda waxa u dhaaranayaa sagaar markaas wuxuu yiri farma saari kartid
markaasuu wuxuu yidhi horta nin fiican aad tahay dagaali mayno kuna xoogi maayo waa gar tabar kuu sheega maayo aan ku heshiino yani aan wax wada qaybsano ceelkaas hadda wuxuu dhahay waa jaran yahay oo hadda biyi si waa duugan yahay sax waa anaa qodayo dhahay markaan qodo oo aan biyaha ka soo saaro ceelkaas adiga iyo xulafadaadaba ka waraaba ka dharga markay aad ka noolaataan hambadiina leeyano aniga iyo waxa aan wataa hambadaasan leen dee hambadaas aba aniga iga badan haddaa rabtiin wax ugu filan soo reebnina laakiin muhiimaddu waxay tahay waana idin qodaa igana horumara maadaama ceelka iga soo horreyseen waa tanaasul fiican talo soo jeediyey marka sagaarkii waa ku waafaqi diiday wuxuu yidhi nin weyn baa tahay intaasaana leegta xoog intaasu kula egyahay ama xoog meesha la imaado ama xeeladan ay ugu wado sirsarashada waa socodeyday ka tag meesha waxba wadaagi mayno yiri wax aan wadaagayna iyo wax adiga qodayda hatta ayaan qodan daaro laakiin waa yiri meesha ta qodo inaad hambadayda cabto xitaan kaaga hormara macquul ma ceelkaasba biyo kuma lihid wax biyo aad ku laada mal markaas uu rinay ma gideys fiiriga maya alle ka taa oo soo ordo baalkii maroodiga ah maroodigu xaarkiisu aad buu u weeyaa saaladiisu saa'id waa ka saala weyn ka saala weyn marka sagaarkii hal saalo ku fadhiisay asaga dhamaay hal mar ku sii daayay anigii dhaawad isku yeelayay oo qumaatiga u istaag lahaa hal mar ku fadhiisay saalo ku qotansh naftiga ka dhacday waaba dhintay waana boqorkii sagaaradii marka meel bay isugu tagto meel markay isugu wada tagana waxay yiraahdeen waa inaan boqorkeennii u soo aarnaa meesha ku soo hadal qaadeen mid baa inta soo gooyay waliba waa sidii loo dilay inaan u dilnaa yani saala lagu dilay waa inaan saala ku dilnaa anaguna xaarkii lagu dilo waa inaan isla xaarkii aan ku dilnaa maroodi marka ilaa iyo hadda iyo aaga ninkii yaqaana ama meelaha miyiga ka yimid ama haddaba ku noolba inta badan sagaaradu marka ay meesha ay ku hoyato saaladeedu way isku geegeedaa kalama geegeedo isku aruuriyaan waa u geeshnimo macnaha ilaa iyo hadda maroodiga ku dil rabaa ilaa iyo hadda waa hub dhigash waxa ay xaarkii meel isku geegeeyaan dhan waa hub dhigash waxay ku dagaalamaan maray noqon doonto kulay ma aqaan marka waa kaas ilaa hadda halgankii ku jirta marka ilaa hadda halgankii ku jirta sheekada xigmadeedu waxay tahay yani haddii aadan xitaa awood lahayn aad u tiro badan waxaa laga yaabaa qofka kaa awooda badan inuu si kugu degdegay oo talo kuu soo jeediyo wax adigana ku anfacaya isagana anfacayo kuu soo jeediyo marka inaad ku waafaqdo aad u fiican tahay haddaad tabaraad iskaga celido aan lahayn sidoo kale xigmada kale ee ku jirta sheekada waxay tahay haddii aad aragto qof aad ka awood badan tahay ama aad ka turuq weyn tahay inaad ku degdegtaa ma fiicno hadduu wax kuu diida xitaa inaad u dhimirso waa loo baahaya ilaa asaga kibirkiisa aad aragto yani asagu oo ku aqbali waay waxaad gaareen hub gurashadu waa garaad xumaa maqli waa garaad waxay gaareen xaar iyo wax gurguranayaan gaari doonta waa gad barnaamijkii xigmada waxaan u malaynaa aniga sharaawo waa naga soo gudbay waan camaarayay nin hortay maaniga adiga sheekada aad ii hayaa waxa weeye waxaa jirtay bari 3 nin oo mataana ah way isku egyihiin saddexdooda tuuray leeyihiin nin kalba mid walba tuuru leeyahay loo kala aqoodo waa dhibaato waa garan waan ku yeelniyow maalinkii dambe markay xogaa soo hana qaadeen oo soo barbaareen aadiya baa niyow laba rag xog la noqoto midna waa nin iska tabar yar oo jiraalo oo kalba noqday labadii ka soo horbaxda waa ninkan marka waa la garbiyaa waa la garaacaa aadiya ilmaha yararkaas isma garaacaan ninkan lagu goobta mar walba adiga waa dilaan waa garaacaan waa ciil maalintii dambe ninkan waa xanaaqayeen hoosu ciilkaan bisugu jiray markii ay barbaareen dad iska reebadiyaan ay ahaayeen inuu barinkii inta ka soo baxo magaalada iska galan ninkan ma ninkii yarka ah haye magaalkii intuu joogay uu inta wax fahmay ugu dambeystii oo xukuumad meesha ka jirta nin boqor ka tali jiray uu ta ku biiray agaasimo ka noqday aadiya hadba ninkiisu u dallacay boqorkii baa markii dambe meesha ka baxay asaga meeshii la wareegay waa ninkii xukuumadii dhan oo boqor ka noqdo waa ninkii yar miskiinka adduunka laga soo horreeyay ninkii yarka ah aadiya labadii nin reeb miyay iska yihiin aadiya maalinkii dambe ayagoo halkii ninkii boqorka iska joogo
bay labadiina waxay maqleen ninkii idinla dhashay Ha. baa boqor meesha ka noqday صح raggu ayagu wax hore ayaga wax u yeelay waxa la yeelaana la yeelaana ما هلمام لا يلا ما هلمام yeelaana yeelaa soo hilmaamay ايوه nimankan waxay isdhayn walaalkiina boqoree ها balta u tagtiin wuxuuna idin soo taago jawaan ka soo buuxsan ha ايوه jawaanadoodii alaab dameer iyo geel ay wateen oor iyo waxbay soo wateen bismillah gaadiis gaadiis صح wax isleeyihiin shin badan iyo alaabo badan ay ka soo qaadaysay صح ninkii markay u imaadeen baa waxaa la yidhi iridii boqorkay soo gargaraacay marka qasrigii boqorkay soo gargaraacay صح ninkii tuurta lahaa Waa boqorka garan. noqday gurigiisa soo gargaraacay واقرا marka ninkii waardiyaha intuu fiirshay oo arkay inay u eg yihiin Mhm. boqorka inay u eg yihiin unta boqorka u tagu yidhi laba nin oo kuu eg Aha. ay iridda taagan oo adiga ku eegba ها waaga wuxuu yidhi islaantii inta u wacay مهم. uu yidhi labada nin inta albaabka laga furo مهم. oo wadiin مهم. falanjiyeerada maaragtay wax lagu qaboojiyo ها waaweynka bartaad inta geysid إيه. oo ilaa reebaadiin nimanka waxba moogeen ها falanjiyeer inta dhex gelisay oo shaah u shubtay ku xir ده فرنجير وكل حاجه falanjiyeer haa gacale markayaan bay qabowgaas بسم الله rag soo daala waa ilaa wax isleeyihiin ها mesh qabow badana mش xoogaa qabow badan raaxa badana meel iska raaxa isleeyihiin waaga baalkiyaa la fariisiyey waxaa la yidhi meeshaan ku jira horta صح laba koob shaaha loo shubay صح markaasaa ni ahow inta lagu gambiyaa lagu shida baalki فرنجير haa واقرا nimanka ayagoo sidaasa ها nin kasta koobkii nin walba haysto koobka saa u haysta uu baraf meesha ku noqday baraf waa barafoobeedheo labadii nin meeshii wadniyaa istaagani waa dhinteen بسم الله نفتي كان عاد haa allah yarxamo marka ايوه نعم waa la qiyaamay nimankii marka waxay sameeyeen meydkii markii la soo bixiyey ilaa nimanka waa dhinteen meyd bay noqdeen banaanka markii loo soo saaray buu ninkii boqorkii tuurta lahaa wuxuu yidhi naagtiisii intuu wacayuu u dhiibay laba lacag intuu u kala dhiibay wuxuu yidhi labada meyd ha lagu soo kala duugo صح tan intaan kusoo duug kan intaan kusoo duug haa intaan kusoo dukan intaan kusoo dug waaga marka waxay samaysay xeeladii degto lacagta xogaa roon badan ahayd hunguriga ka gala lacagtii islaantii ما يدي lacagtii meetay اول مره حاجه ثلاجه دقليسه labada ninna way isku eg yihiin waaga waxay samaysay isla markii mid ay soo qabatay falanjiirkii ka bixisay meel luuqay geliso صح seento u wacday kuwii meedka qaadaya waxay tiri ninkan la soo duugo marka ii imaaday dhahdo oo soo duugtiin lacag soo doonta هذا waa baxday nimankii meydkii qaadeen waxay geeyeen meeshii loogu talagalay صح waa soo duugeen صح markay soo laabteen ay dhahan lacagtiina siin sina meydkii ma soo duugteen ha iska soo fiiriya dhahdo waa soo xaqiijinaya صح meel luuqa maya waa kaasoo kala dhaafeen markay nimankii ay baxeen waxay samaysay kii kale falanjiyeerka ku celisay صح luuqa gelisay falanjiyeerka ku celisay واقع falanjiyeerka markuu geliyay nimanka waa soo laabteen lacagtii soo doontay lacagtiina sii dhaa markaas tiri waa iska soo xaqiijinaa waaga ميت inaad meydkii soo duugteen yan kale واقع marka waxay sameeyeen waa soo raaceen ayagoo hadda kalsooni haysan waa niman meydkii soo duugay صح soo duuganayna iska soo xaqiiji mac dhagxaan soo saaray نحن كان ورمي مقلي جري وحاب موغا يو waxba ma ogaa بعد كلا قصه waa soo baxeene ninkii laftigiisiyaa meesha ku jiraba صح markaasay dhahday tuugaa tihiine mar kale iga soo duuganiyo lacagtii horena caafiyo oo ninkaa soo dugteen nin jiro maahan midka waaba kambaninki ninkii maba ina soo duugay inay dhahdo waa kan halkaa ku jira ninkii waa kanaa soo duuganiyo nimanka isla ayaga ay qiyaan haa hal lacagna sidee rabtaa hal lacag inay sidaan labada meyd ku siisay rabtaa ila labadana waa isku egyihiin ayada waa askariyada haa marka waxay samaysay waa dadka salaamada ku jirta markii dambe waa ku qasbanaadeen ilaa nimanku lacag bay u baahan yihiin صح meydkii kale qaadeen goday u soo qodeen waa soo duugeen واقع waa soo laabteen lacagtii soo doonteen nimankii هذه qasrigii soo galeen صح markii qasrigii soo galeen waxa arkay boqorkii tuurta lahaa oo u ekaa صح meesha fadhiya kii hore waa dhintay soo noo arkayba meesha markii arkay haa marka waa yaabeen nimanku ma ninkii uusa ahayn ay hadda soo duugeen labada mar lagu celiyay bilowkan mar kale soo baxay intay qabtay madax ka jaray boqorkii tuurta lahaa ninkii dileen يا سعر كان عامل اسلامتي boqorkii ta madax laga jaray tuurta lahaa mar
saddexaad la soo duuganiyo say lacagtii soo doonteen الله يرحمه بقولك الله ينحس markaas waxay inta u imaadeen dhageyso ninkii waa soo duugnay صح wali marka inta soo laabtay soo nool ta qaban كنا نلعب زمان ده ما حاجه marka naagtii markaas soo baraarugtay saddex maxaa ma mid kala dugteen inay meesha fahantaa marka waxay dhahday markaas inta fahantay lacagtooda inta siisay dhahay baraay ku dhacday horta ka taga marka boqorkii mid kale uu dhalay oo curadkiisa xoogaa soo tuur lahaa oo haray war waa cid la tuur boqortooyadii ninkaas oo haray markii dambe marka dulada sheekada waxa weeye inta aad adigu wax badso wax beel leedahay صح waxa isdhehaysaa lacagta kala reebatid waa ku nin weys ilaa nin aan naaglaan dhig والله dhaqaale shay ilaahna ma dhigeen waxaan ka codsanaynaa inaad like subscribe noo saartaan oo like noo saartaan oo waliba noo share gareysaan si aan barnaamijyada u soo badino aad bad ma santiin marka ani intii horta sheekada ka heshay subscribe ha saareen ninkan sheekaysi inta ka heshana like ha saareen anigana ha share gareeyeen adi inta sheekada ka heshana waa ninka tiisa waa arki doonaa anigana tiisa ma santiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.